ma ogtahay maskaxda bini'aadanka waxay ka mid tahay xubnaha ugu muhiimsan jirkeena haddii ayba ahayn midda ugu muhiimsan. maskaxdu waxa ay si joogto ah u xakamaysaa sida fikirka, xusuusta, dareemaha, aragtida, neefsashada iyo qaybaha kale ee jirkeena. sidoo kale maskaxda bini'aadanka waa curiyaha fikradaha, laakiin ma aha in loo isticmaalo maskaxda in lagu kaydiyo fikradaha, macluumaadka oo markaas loo isticmaalo sida baqaarka lagu kaydiyo raashinka. qoraagii caanka ahaa ee la magac baxay David Allen buuggiisii uu soo saaray 2001 Getting Things Done ayaa ku sheegay your brain is great for having ideas not for storing them. maskaxda waxay ku fiican tahay in fikradaha lagu curiyo, ma aha in loo isticmaalo in lagu kaydiyo isla fikradahaas. maxaa u soo qaatay jumladan dib ayaa ugu soo laaban doona insha Allah. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu shaki naga galo in hawshii inoo taalay aan u qabanay sidii la rabay, ama aan raacnay processkii ama procedure-kii saxda ahaa, ama inuu shaki naga galo in aan waqtigeena ku isticmaalno waxyaabo aan munaasab ahayn oo nolosheena u fiicnaan caafimaadkeena, oo markaas noo horseedinin inaan gaarno hadafyadii nolosheena. insha Allah videoga maanta waxaa kula wadaagi doonaa 2 qodob oo aad iyo aad muhiim ah oo aan rajaynaa in haddii aad samayso oo markaas shakiga kaa bixi doono in hawlihii ku yaalay aad si sax u qabatay, ama in aad waqtigaada ku isticmaashay waxyaabo munaasib ah. run ahaantii 2 qodob aan kula wadaagi doono aniga aad ayay ii anfaceen sanadii ugu dambeeyay, aad iyo aad ayay u isticmaalay. waxaan rajaynaa adigana in aad isticmaasho oo maaragtay ka shaki bixiyaan ama waxyaabaha qaarkood oo hurdada qaarkeen u diiday haddii ay ahaan lahayn in hawshii noo taalay iyo goorta la qaban lahaa iyo say wax u kala horeeyaan, ama waqtiyada balamaha, maalinta maxaa kuu qorshaysan, iyo su'aalo kale fara badan oo maskaxdeena ka dhex guuxaya sida loo process gareeyo oo maaragtay loo nidaamiyo ayaa insha Allah kula wadaagi doonaa. ka hor intaan gudagelin 2 qodob waxaa jeclaan lahaa marka hore haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena YouTube-ka Ali Esi Online, fadlan soo dhow. haddii jeer kanaalkan waxaa ku soo qaadanaa fiidiyoyaal lagu baranayo teknolojiyadda, fiidiyoyaal dhiirigelin iyo su'aalaha naga soo dalbataan ayaa ka soo sameynaa video oo markaas idin la wadaagna. waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan engagement-ka u samaysaan. fadlan kanaalkan ku taageer haddii jeer inaad like saarto videoga oo asxaabtan la wadaagto, waana mahadsantahay. okay, 2 qodob aan kula wadaagi doono waa 2 qodob oo sahlan oo aad markasta isticmaali karto oo aad samayn karto. qodobka koowaad waxaa u baahan tahay in aad soo qaadato qalin iyo warqad haddii aad ku fiican tahay qoraalka. qalin iyo warqad sidoo kale waxaa isticmaali kartaa mobilkaaga ama computerkaaga si aad ugu qorato wax kasta oo aad ku fakiraysay, haddii ay ahaan lahayn su'aalo kaa dhex guuxaya, ra'yiyaal, fikrado, ganacsiyo cusub, ama wax kasta oo xusuus qor, ama balamo haddii ay ahaayeen wax kasta oo kuu diiday in aad seexato. waxaad samaynaysaa in aad qorto list, midka ugu horreeya aad xasuusto iyo si ay u kala horeeyaan ayaa wax qoraysaa dhammaan wax kasta oo ku fikiraysay. qodobka labaad wuxuu ku xiran yahay qodobka koowaad. listiga aad qortay ama qodobadii aad soo qoratay, su'aalihii, waxyaabihii kaa dhex guuxay aad qortoo dhan waxaa u kala qaybisaa 2 qaybood. qayb adiga maanta wax ka qaban karto iyo qayb kale oo dib u dhiganayso oo markaas kaaga baahan waqti dheeri, energy dheeri, lacag dheeri iyo dad ku caawiyo oo kula qabto oo dheeri kuwa u baahan gooni ayaa u dhigaysaa ikana. okay, kadib markii aad kala qaybiso oo aad kala ogaato mid kasta iyo waqtiga la qaban lahaa iyo qofkii qaban lahaa markaa ku qorto, waxaa kuu cadaanayo waxyaabaha qaban karto maanta iyo waxaad qaban karin. isla markaasna shaki waxaa kaaga baxaya in aad maaragtay waqtigaada ku isticmaasho waxyaabo aan munaasib ahayn. isla markaana waxaa si helaysaa xasilooni, degnaan, shakiga iyo walwalkana meeshaas ayuu kugu daanayaan. isla halqabsigii aad videogan bilowgiis ku soo sheegnay oo ahaa your brain is great for having ideas not for storing them, macnaheedu waxay tahay in fikradaha maskaxdeena ku jira aan ku kaydinin balamaadii aan lahayn, taariikhadii aan lahayn. maskaxdeena waxyaabo kale muhiim ayaa jira oo u baahan inay kaydiso waxyaabaha yaryar oo saacadaha iyo balamaha iyo waxyaabahaas oo kale process wax u baahan maskaxdeena ma ku fiicno. sidaas darteed waxaa fiican in aad qalin iyo warqad ama computer ama mobile waxay ahaan lahayd aad u isticmaalno oo markaas sida u kala horeeyaan aad u qabano. maskaxda sidaas soo sheegnay ma ku fiicno processka sida wax u kala horeeyaan, laakiin waxay ku fiican tahay in ay soo curiso fikradaha fiican. videogan maanta aan ku soo qaadanay in maskaxda aan ka soo saarno wax kasta oo ka dhex guuxaya si aan u helno xasilooni, kalsooni iyo shakigana inoogu baxo. waana mahadsantahay. videoga maanta waxaa kuu soo diyaariyay anigoo ah Ali Maxamed Ismaaciil Baashi. fadlan nagu taageer inaad like saarto videogan. waana mahadsantahay.